asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena toddobaadkii fankii caalamka maxaa ka cusub sida caadiga barnaamijka waxaan idila wadaagnaa maalmaha jimcadii isniinta waxaanu kusoo qaadanaa sheekooyinka xiisaha badan ee markaas ka jiraan fankii caalamka waxaa mar koowaad ku bilaabanaa daawadayaasha qiimaha badan filimada tenet iyo sidoo kale indoka jawani oo tiyaatarada hindiga saaran ganacsiga samey ilaa iminka marka koowaad ku hormarna filimka lagu magacaabo indoki jawani oo hogaamiye ay ka tahay kiar advani sidoo kalena uu ku heliyay atooraha lagu magacaabo aditya sil mashruucan wuxuu sameeyey ganacsi liid saddexda maalmood ugu horeysa sida haatan ay soo daabacay shabakada bakusifas india wuxuuna keenay 60 leg daawadayaasha qiimaha badan markii lacagtaas la kala qaaday waxay ka dhigan tahay filimka lagu magacaabo indoka jawani in dabcan maalinkiisii koowaad jimcadii uu keenay 20 leg kadibna waxaa u suuragashay sabti axad markii laisku daro wadar ahaan filimka inuu keenay 40 leg daawadayaasha qiimaha badan mashruucan waxaa ku adkaan doonto cimri ahaantiisa inuu gaaro 1 karoor waa haddii uu dadaalo dhinaca kale markii la fiiriyo suuqada caalamka filimka indoka jawani wuxuu kasoo xareeyay 35,000 oo doolarka mareykanka weekendigiisa ama 3 maalmood ugu horeyso lacagta ugu badan wuxuu ka keenay golofka oo uu kasoo xareeyay 20,000 oo doolarka mareykanka waxay ka dhigan tahay mashruucan dibad iyo dalba wuxuu ka noqday filim burburay laakiin dadka niyad wanaag ayuu ku beeray maadaama kooxda filimkan iskale tiyaatarada mashruucan ay soo saareen waana la filaya filimkan wax weyn uusan ka sameyn karin waxaa la rajeynayaa toddobaadada nagu soo fool leh ama bilooyinka nagu soo fool leh filim waaweyn masrax in la saaro si dabcan daawadayaasha u soo aadan tiyaatarada dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan filimka hollywoodka tenet ayaa ganacsi wanaagsan ka sameynayo gudaha hindiya waxaa u suura gashay toddobaadkiisa labaad saddexda maalmood ugu horeyso filimkan inuu keeno 2.75 karoor waxay ka dhigantahay 30% sudhac ayuu sameeyey markii lala bardhigay toddobaadkiisii koowaad saddexda maalmood ugu horeysa ganacsiga uu sameeyey filimka tenet waxaa u suura gashay daawadayaasha qiimaha badan sida haatan diiwaan gashan toddobaadkiisii koowaad inuu keeno 5 karoor iyo bar sidoo kale toddobaadkiisii labaad saddexda maalmood ugu horeysana wuxuu keenay 2.75 karoor taasi oo ka dhigan filimka muddo 10 maalmood inuu soo xareeyay 8.25 karoor sidoo kale tan filimkan hubanti ahaan 10 karoor ayuu gaari doonaa waxayna ka dhigan tahay daawadayaasha qiimaha filimka tenet ganacsi wanaagsan ayuu gudaha hindiya ka sameynaya maadaama xaaladda adag tahay haddana u suuragelaysa filimkan 10 karoor gudaha hindiya inuu ka soo xareeyay cimri ahaantiisa ganacsiga ugu wanaagsan wuxuu ka sameynaya Bombay iyo sidoo kale dhankaasi koonfur hindiya bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan akhbaar ku aadan maanta kale filimada la daawaday ciwaanada waxaa qaadanaya filimka lagu magacaabo kabi qushi kabigam oo kasoo wareegtay daawashadiisa dabcan 19 sano filimkan kalaasiga ee blackbusterka taariikhiga noqda waxaa la daawaday 14 December sanadii 2001 filimkan waxaa director ka ahaa ninka lagu magacaabo Karan Johar wuxuuna isku keenay waqtigaas atoorayaasha ugu awood badnaa fanki hindiya ilaa haatanna kamid taariikh ahaan kabi qushi kabigam marna farxad marna murugo waxaa hogaamiyalka ah Mega Star Amitabh Bachchan Mega Star Shah Rukh Khan Superstar Hrithik Roshan Kajal Kareena Kapoor Jaya Bachchan iyo jilayaal kaleeto wuxuuna noqday filimkan daawadayaasha blackbuster taariikhiga gudaha hindiya suuqada caalamkan wuxuu ka noqday all time blackbuster kabi qushi kabigam daawadayaasha badan ximbaarsanaa miisaaniyad xad dhaaf oo gaaris 40 karoor xilligaasna wuxuu noqday filimkii ugu qaalisnaa ebed ee hindiya sameeyeen mashruucan waxaa la saaray 500 tiyaatar maalinkiisii koowaad wuxuu keenay 2.68 karoor wuxuu sameeyey bilaabasho taariikhi ah saddexdiisa maalmood ugu horeysa wuxuu keenay 7 karoor waa bilaabasho kale taariikhi ah toddobaadkiisii koowaad wuxuu keenay 14.68 karoor waa bilaabasho kale taariikhi ah cimri ahaantiisa wuxuu soo xareeyay 55.65 karoor wuxuu noqday filimka labaad ee lacagaha ugu badan soo xareeyay sanadii 2001 waxaa ka lacag badnaa filimkii sanadol sameeyay Gadar Ek Prem Kata oo all time blackbuster noqday kaasi oo 76 karoor ka tilaabay sidoo kale daawadayaasha qiimaha filimka kabi qushi kabigam waxaa tigid u goosteen 31,173,000 oo qofood wuxuu ka mid yahay filimada lagu daawasho badan yahay qarnigan 11aad daawadayaasha qiimaha badan lacagtii 55.65 karoor oo keenay kabi qushi kabigam muddo haatan laga joogo 19 sano kadib waxay u dhigmataa 315 karoor ay u dhigmataa waana lacag adag oo muujinayso sida filimkan wacdaro uu kaga dhigay tiyaatarada hindiya dhinaca kale markii la fiiriyo qolyaha cajaladaha qeeyaan filimkan lacag waaliya ka helan maadaama macaashaan ay ka heleen 36.35 karoor wuxuuna ka mid noqday xilligaas filimada macaashka ugu badan ebed ee Bollywood ka helaan sidoo kale daawadayaasha kabi qushi kabigam suuqada caalamka wuxuu ka noqday all time blackbuster wuxuu soo xareeyay 8.9 milyan oo doolarka mareykanka ilaa laga soo gaaray sanadii 2006 oo markaas uu soo baxay filimkii kabi alvida nakehna oo isla Shah Rukh Khan hogaamiye ka ahay muddadaas dabcan filimada ee Bollywood ka sameeyeen kan ugu lacagta badan waxa ah kabi qushi kabigam taasi oo muujinaysa sida SRK suuqada caalamka aan lagu gaari karin sidoo kale filimka markii la isku dar ganacsiga dibad iyo dal waxa loo yaqaan worldwide cross wuxuu soo xareeyay 135.53 karoor wuxuuna ka mid ahaa xilligaas ama uu noqday filim record taariikhi sameeyay isku soo wada duub maanta baraha bulshada waxaa iska kabi qushi kabigam
oo kasoo wareegta daawashadiisa muddo haatan laga joogo 19 sano. idinkana maxaa ku xasuustiin la wadaaga. sidoo kale daawadayaasha qima toddobaadkan filimada caanka ee soo baxeen waxaa qayb ka ah filimka lagu magacaabo Raabne Banad Jodi oo ay kusoo caanbaxday tirashada caanka Anushka Sharma. mashruucan waxa hogaamiyey ka ah Bollywood King Khan aka Shahrukh. Raabne Banad Jodi wuxuu noqday blockbuster taariikhi ah waxaana dabcan directorka Aditya Chopra waxaana la daawaday 12 December sanadii 2008. sidoo kale daawadayaasha qima toddobaadkan kale filimada caanka soo baxay waxaa qayb ka ah filimka Soomaalida agtooda blockbuster ka ah ee lagu magacaabo Shabad waxaa hogaamiyalka ah Mutum Chakraborty iyo Jackie Shroff. filimkaana wuxuu soo baxay 12 December sanadii 1997. filimka Shabadna wuxuu noqday mashruuc guuleystay oo samihiid ah oo macaash fiican laga helay. daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadana markaa maqaalan kaga hadlayno atirashada caanka ee Anushka Sharma oo u dabaaldegaysa 12 sano oo ay fanka Hindiga ka tirsantahay maadaama toddobaadkan kusoo caanbaxday filimkii Raabne Banad Jodi oo daawashadiis laga joogo 12 sano. sida guud daawadayaasha qiimaha badan atirashada caanka Anushka Sharma waxay sameysay 18 film door dhameystiran ku leedahay 12 sano fanka Hindiga ka tirsantahay. filimkeedii koowaad waa Raabne Banad Jodi oo la sameysay SRK sanadii 2008 la daawaday wuxuu soo xareeyay 84.68 karoor waa blockbuster. filimkeedii labaad oo mashruuca lagu magacaabo Badmaash Company oo 2010 la daawado waxay la sameysay Shahid Kapoor jilaayal kale wuxuu soo xareeyay 32.87 karoor waa filim guuleysto average ah. filimka saddexaad oo mashruuca lagu magacaabo Banda Bajja Bharat oo 2010 soo baxay waa filimkii Ranveer Singh ku soo caanbaxay wuxuu soo xareeyay 23.16 karoor wuxuu noqday filim guuleysto average ah. filimkeedii afraad waa mashruuca lagu magacaabo Tiala House oo 2010 la daawado waxay la sameysay Akshay Kumar iyo Rishi Kapoor kii geeriyooday wuxuu soo xareeyay 32.81 karoor waa filim guuldareysto oo flop ah. filimkeedii shanaad waa mashruuca lagu magacaabo Ladies Feast Ricky Ball oo la sameysay Ranveer Singh iyo Broniti Jabra wuxuu soo xareeyay 30.75 karoor waa filim guuleysto average ah. filimkeedii lixaad waa mashruuca lagu magacaabo Jab Tak Hai Jaan oo la daawado sanadii 2012 waxay la sameysay SRK iyo soo kale Katrina Kaif wuxuu soo xareeyay 101.59 karoor wuxuu noqday filim guuleysto macaash laga helay oo hiid ah. filimka toddobaad oo mashruuca lagu magacaabo Matru Ki Bajli Ka Mandola oo ay la sameysay Imran Khan wuxuu soo baxay 2013 wuxuu soo xareeyay 38.89 karoor waa filim guuldareysto oo flop ah. filimka saddexaad oo mashruuca lagu magacaabo BK oo 2014 la daawado ay la sameysay Amir Khan wuxuu soo xareeyay 337.72 karoor waa filim darajada ugu sareysa gaaray oo noqday all time blockbuster. filimkeeda sagaalaad oo mashruuca lagu magacaabo NH10 oo ayada hogaamiyey ka ahayd 2015 la daawaday wuxuu soo xareeyay 31.53 karoor waa filim guuleystay oo samihiid ah. filimkeeda tobanaad waa mashruuca lagu magacaabo Bombay Velvet oo 2015 la daawado waxay la sameysay Ranbir Kapoor kani wuxuu noqday filim burburo disaster ah wuxuu soo xareeyay 22.80 karoor. filimkeeda 11aad oo mashruuca lagu magacaabo Dil Dhadhagna Du oo 2015 la daawado jilayaasha faraha badan isugu keenay ku jiraan Ranveer Singh, Anil Kapoor, Priyanka Chopra iyo Farhan Akhtar wuxuu soo xareeyay 75.5 karoor wuxuu noqday filim guuldareystay oo below average ah. filimkeeda tobanaad waa mashruuca kalaasiga Suldaan oo 2016 ay la sameysay Salman Khan wuxuu soo xareeyay 300 karoor waa blockbuster weyn. filimkeeda 13aad waa filimka jaceylka saddex geesoodka ah ee Dilhay Mushkil oo ay la sameysay Ranbir Kapoor iyo Aishwarya Rai Bachchan iyo Fawad Khan wuxuu soo baxay 2016 waa filim guuleystay oo macaash laga helo hiid ah wuxuuna soo xareeyay 106.48 karoor. filimkeeda 14aad waa mashruuca lagu magacaabo Villari oo la daawaday 2017 wuxuu soo xareeyay 25.2 karoor waa filim guuldareysto oo flop ah. filimkeeda 15aad waa mashruuca lagu magacaabo Jab Hari Met Sajal oo 2017 la daawaday asigana wuxuu noqday filim guuldareystay oo soo xareeyay 62 karoor waana flop waxay la sameysay SRK. filimkeeda 16aad waa mashruuca lagu magacaabo Bari oo cabsida badnaa 2018 la daawaday wuxuu soo xareeyay 27.57 karoor waa filim guuldareystay oo below average ah. filimkeeda toddobaad waa mashruuca lagu magacaabo Saudaga Made in India oo ay la sameysay Farun Dhawan wuxuu soo baxay 2018 waa filim guuleystay oo samihiid ah wuxuu soo xareeyay 76.10 karoor. filimka 18aad ugu dambeeyay wuxuu ahaa Zero oo 2018 la daawaday waxay la sameysay SRK Katrina Kaif wuxuu soo xareeyay 88.74 karoor waana filim guuldareystay. markaan kala saarna filimada ay sameysay natiijo ahaan Anushka Sharma hal filim ayaa u noqday all time blockbuster, laba filim waxay u noqdeen blockbuster, super hit ma aysan sameynin weli, laba filim waxay u noqdeen hit, laba filim waxay u noqdeen semi hit, saddex filim waxay u noqdeen average, laba filim waxay u noqdeen below average, shan filim waxay u noqdeen flop, hal filim wuxuu ka noqday disaster. sida haatan xogta ku diiwaan gashan daawada
daawadayaasha qiimaha badan gabadhan 5 filna waxay u noqdeen hit dhameystiran ama macaash laga helay taas oo ka dhigan 27.77 ama 28 boqolkiiba filmadeeda inay hit noqdeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan atirashadan waxa u guuleysteen 10 film taas oo ka dhigan 55.55 boqolkiiba ama 56 boqolkiiba filmada inay guuleysteen daawadayaasha qiimaha badan dhinaca kale aan showcase tarm waxa ka guuldareysteen 8 film waxay ka dhigan tahay 44.44 boqolkiiba filmada waxay noqdeen kuwa guuldareysteen dhanka biladaha markii aan fiirnay xidigtan 12 sano fanka Hindiya ku jirto abaalmarinta ugu caansan Filmfare Awards hal bilad ay qaadatay waana atirish caawisada ugu wanaagsan ee loo yaqaan Best Supporting Role Actress waxayna ku qaadatay filimkii Jab Tak Hai Jaan oo ay la sameysay Shah Rukh Khan iyo Katrina Kaif oo la daawaday 2012 laakiin biladan waxaa la siiyay horaantii 2013 bal markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob xiiso badan oo ku aadan atirashada caanka awoodda badan Alia Bhatt ayaa la aamusin waayay kadib markii muuqaal dareen badan oo qiiro ku dhahan la sameysay labada atoore awoodda badan Ram Charan iyo ninka lagu magacaabo Junior NTR maalmo kor waxaan la wadaagnay filimka weyn Triple R duubistiis in lagu soo dhaweeyay Alia Bhatt waxaanu ku soo dhaweeyay film sameeya caanka lagu magacaabo Estra Jamoli haatan shaqada filimkan waxay ka socotaa magaalada Hyderabad habeen iyo maalin ayaa la duubaa waxaana la rabaa inta sanadkan ka dhima shaqada filimka weyn Triple R in lagu soo gabagabeeyo saadarteed shabakada caanka Times of India waxay daabacaysaa in Alia Bhatt Ram Charan iyo Junior NTR ay duubeen muuqaal aad iyo aad u qiiro badan saadarteed waxaa la sheegay gabadhan caanka ee Bollywood ka tirsan inay iska ilmeyso xitaa markii muuqaalkan la soo gabagabeeyay la aamusin waa waxayna ka dhawaajisay Alia Bhatt muuqaalka inuu yahay midkii ugu qiirada badnaa abad ay sameyso filimkan weyn sidoo kale waxaa door muhiim ku leh Ajay Devgan oo shaqadiisa hore u qabtay sidoo kale tan dabcan muuqaalada filimkan uu ku leeyahay mar hore uu duubay dhinaca kale filimkan weyn waxaa la rajeynayaa daawadayaasha qiimo badan sanadka dambe 6 bilood ugu dambeysay in la daawado saadarteed waxaa leeyahay filimka Triple R waxaa lagu daawan doonaa wax yar ma ahan marba haddii Alia Bhatt la aamusin waay muuqaal qiiro badan ee la duubtay Ram Charan iyo Junior NTR dhinaca kale daawadayaasha qiimo badan atirashada caanka lagu magacaabo Disha Patani waxaa la sheegay markan calaf inay u yeelatay filimka weyn ee lagu magacaabo Salar inay la sameyso superstarka caanka laga dambeeyay reer koonfur Hindiya haatan Bollywood ka awood ku yeeshay qof kale ma ahan waa Baravas waxaan hore kula wadaagna filimka Salar director ninka lagu magacaabo Prashanti Neel oo ku caan baxay sameynta KGF chapter 1 iyo chapter 2 haatan dabcan wuxuu la midoobay Baravas asigoo u sameynaya filimka Salar Baravasna filimkan wuxuu ku matalay gangster awood badan Disha Patani waxay ka heshay doorka loo soo bandhigay mashruucan waxay duubis ku bilaaban doontaa horaanta sanadka cusub waxay noqon doontaa arrin xiiso badan qaabka iskula shaqeyn doona Baravas iyo Disha Patani oo markii ugu horeysay shaashada wadaagi doona nasiib waana lana xidigtan waxay u noqon doontaa markii labaad taariikh ahaan sameyn doonto filim Telugu ama koonfur Hindiya laga leeyahay sababtoo ay gabadhan waxay ku soo caan baxday ama fanka Hindiya ku soo dareen koonfur Hindiya waxayna ku soo caan baxday filimkii Lover oo ay la sameysay Frontage oo la daawado sanadii 2015 waxay ka dhigan tahay marka Disha Patani koonfur Hindiya kuma cusbo ee dib ugu laabatay gabadhan Bollywood waxay ku soo caan baxday filimkii MS Dhoni oo ay la sameysay Shanti Singh Rajput kaasi oo sanadii 2016 la daawaday wixii markaas ka dambeeyay filmo caan ah sameysay haatan waxa u diyaarsan filimka Red oo ay la sameynayso dabcan Meg Salman Khan oo la daawan doono Ciidul Fidriga 2021 bal markaan la wadaagna daawadayaasha qiimaha badan warbixin rasmi ah ku aadan superstar Ajay Devgan oo shaaca ka qaaday filimkiisa weyn lagu magacaabo Meydaan waqtiga la daawan doono Devgan ciwaanada kala duwan Bollywood ka siga iskale maalmo kor waxaan la wadaagna filimkiisa weyn lagu magacaabo Mayday inuu shaaca ka qaaday in la daawan doono 29 Abriil 2022 ama Ciidul Fidriga 2022 filimkan waxaa ku weliya Meg Star Amitabh Bachchan iyo soo kale atirsha lagu magacaabo Rakul Purohit Singh Ajay Devgan mashruucan asiga soo saaray iyo director iyo hogaamiye ka mashruuca Mayday marka meel iska dhigna Ajay Devgan haatan wuxuu si rasmi ah shaaca ka qaaday filimkiisa Meydaan in la daawan doono daawadayaasha qiimo badan 15 Oktoobar 2021 ama dabyaaqada sanadka cusub waxaan lagu bilaabay filimkan daawashadiisa feestada loo yaqaan Dussehra daawadayaasha qiimo badan filimka Meydaan Ajay Devgan wuxuu ku matalayaa nolosha macallinkii Hindiya ku weynaa gaar ahaan xul kubadda cagta Hindiya leelin jiray mas'uulka lagu magacaabo Sayid Abdurrahim oo Hindiya hogaamin jiray kubadda cagta guulo taariikhi gaarsiintii u dhaxeysay 1950 ilaa 1963 Ajay Devgan filimkan doorkaas ayuu ku matalaa macallin tababaro kubadda cagta ku matalaa wuxuuna dabcan ka hadli doonaa guulihii dahabiga Hindiya ee gaareen kontomaadkii lixdamaadkii dhinacaas iyo dabcan koonfur Aasiya iyo soo kale tartankii Olombikada adduunka ay ka gaareen mashruucan xiisaha badan waxaa soo saaray ninka lagu magacaabo Boni Kapoor halka director uu ka yahay ninka lagu magacaabo Amit Sharma oo ku caan baxay filimkii Badaaho ee dabcan sida weyn lagu amaanay Ayushman Khurrana marka Ajay Devgan mashruuciisa Meydaan wuxuu ku dhawaaqay 15 Oktoobar 2021 in la daawan doono dhinaca kale daawadayaasha qiimo badan sheekooyin kale xiisaha leh waxaa qayb ka markii aan firino superstarka weyn laga dambeeyay koonfur Hindiya ninka lagu magacaabo Victor Venkatesh ayaa wuxuu si rasmi ah shaaca ka qaaday filimka lagu magacaabo F2 in qayb labaad laga sameyn doono waa filimkii caanka Fun and Frustration oo isla jileen dabcan Frontage iyo Tamanna iyo gabadha lagu magacaabo Mehreen Birzada haatan waxaa shaaca laga qaaday in qayb labaad laga sameyn doono waxaana loo bixiyay F3 waxaana laga soo bandhigay kaartay idin muuqato waliba waxaa lagu soo aadiyay ku dhawaaqista F3 xilli uu dabcan u dabaaldegaya Venkatesh sanad guuridiisa 6aad annagana waxaan leenahay hambalyo kan wuxuu ka mid yahay superstarada fanka koonfur Hindiya ugu awoodda badan
gaar ahaan wuxuu ka tirsan yahay Telugu oo xaruntooda loo yaqaano Tollywood Hyderabad ee tahay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan Fernando Gubati asigana wuxuu u dabaaldegayaa sanad guuridiisa 36aad saadartay waxa aragti koowaad laga soo bandhigay filimkiisa weyn ee uu ku matalay dabcan sarkaalka militariga ah mashruucan waxa ku welisay wada lagu magacaabo Sai Balava iyo Nandita Das filimkana dabcan waxa lagu magacaabaa Virata Bravam haatan duubistiisa way socotaa Fernando Gubati wuxuu ku matali doonaa askari awood badan annagana waxaan leenahay hambalyo maadaama Rana uu kamid yahay actoorayaasha koonfur hindi oo awood badan wuxuuna ku caanbaxay filimkii Bahubali iyo doorkiisii Balaladef ee xumaanta uu ku matalay markaana soo qaadana daawadayaasha qiimo badan qodob ku aadan waa sidee xaaladda directorka ninka dansiga sameeyay sida weyn looga dambeeyay Rema de Souza oo maalmo ka hor wadna xanuun ku soo booday xilli uu shaqo guda jiray haatan waxaa shaaca laga qaaday Rema de Souza inuu soo kabanayo sidoo kale tan waxaa la sheegay toddobaadada nagu soo folle shaqadiisa ayuu ku soo laaban doonaa Rema de Souza si lama filan waxaa laga qabtay xanuunka waxaa la geeyay isbitaal sidoo kale tan waxaa la sheegay inuu gala xaalad kooma ah laakiin ugu dambeyntii xaaladda koomadu ka soo baxay mirdaboolanka sida ay shaaca ka qaaday xaaskiisa lagu magacaabo Lizela sidoo kale filim sameeyaha lagu magacaabo Ahmed Khan oo ay saaxiibo dhow yihiin Rema de Souza wuxuu sheegay saaxiibkiisa xaalad ahaan uu soo kabanayo dhawaanna uu dabcan isbitaal ka soo bixi doono Rema de Souza waxaa lagu yaqaanaa sameynta filimada Bollywoodka wuxuu sameeyay dabcan filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu Street Dancer 3D waxaa hogaamiyalka ah Farun dhawaan Shada Kapoor sidoo kale filimada hore u sameeyay waxaa qayb ka ah markii aan firino Race 3 ee Flying Jet ABCD2 iyo filimo kale uu sameeyay sidoo kale Rema de Souza wuxuu caan ku yahay inuu qabto barnaamijyada reality-ga ah oo laga daawo TV-da gaar ahaan wuxuu noqdaa dhexdhexaadii wuxuu ka noqdaa barnaamijyada dhanka dansiga ayaa looga haray ugu dambeyntii daawadayaasha qiimo badan actooraha caanka awoodda badan Arshad Wars waxaana la wadaagna filimka lagu magacaabo Bajam Bandai inuu la jilayo superstar Akshay Kumar haatan waxaa la ogaaday Arshad Wars filimkan lacagaha uu ku sameeyay mashruucan waxaa soo saaray ka Sajna Diyadwala wuxuuna Arshad Wars darbada filimkan in lagu siiyay 4 karoor oo gaaris 542 oo doolarka Mareykanka balse soo saaray Sajna Diyadwala arrinkaas uu ka biyadiiday maadaama Arshad uu sheegay ama uu xasuusiyay in lagu guda jiro saameynta coronavirus-ka lacagtaas aan la siin karin ugu dambeyntii waxaa lagu yeeshay Arshad Wars in la siiyo 2 karoor ibar oo u dhigmato 339 oo doolarka Mareykanka waliba lacagta horumarisan ayaa loo siiyay filimkana duubistiisa waxay bilaaban doontaa dhawaan oo waliba toddobaadka ugu horeeya bisha Janaayo waxaana sidoo kale atrishooyinka ah Kriti Sanon iyo Jacqueline Fernandez sidoo kale tan waxaa lagu soo diray ruga cadaaga doorka sameyn kara lagu magacaabo Bankash Tripathi filimkan Akshay Kumar hogaamiye ka yahay Arshad Wars ayaa dabcan saaxiibo ku matali doona mashruucan waxaa directorka Farhad Samji waxaa la rajeynayaa Maars 2021 in duubistiisa la soo ilaayo waxayna ka dhigan tahay 3 bilood xiriir ayaa shaqada filimka Bajam Bandai socon doonta qorshahan wuxuu yahay daawadayaasha qiimaha badan sanadka dambe 6 bilood dambe in la daawado guud ahaan barnaamijkeena toddobaadkii fankii caalamka maxaa ka cusub oo aan ku soo qaadanay sheekooyin kala duwan intaas aan ku soo ilaalinaa fadlan fiirkiina ka dhiibto qodobadii aan soo qaadanay haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkayga subscribe saar like iyo share iyo comment ka marno salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu